السلام عليكم horta hore waxaanu caawa isugu nimid inaanu halka kan ka dirno tacsi baroordiiq geeridii ku timid walaalkeen madaxeennii ambassador cabdikariin cali cumar cabdikariin aw cali waxaan rabnaa intaanan hadalka u badinin dhinac kale u gudbin oo aan u gudbin hadallada iyo duubidda tacsida baroordiiqda inaan ku soo dhoweeyo sheekh axmed inuu laba aayadda qur-aanka noogu furo si kooban waxaan ehelkii iyo tolkii iyo asxaabtii khaasatan reer Columbus iyo reer Mareykan ugu tacsiyeenaa xubin ka mid ah dadka labeentiisii oo geeriyooday anagoo islaam ah oo og in qof kasta meed la kulmi doono oo geeri la kulmi doono haddana ambitionka aanu anagu qabnay tugu asagu qabayba xoogaa degdeg bay nagu ahayd marka hadalka odayaasha iyo ragga kale ee furmada lahaa ku dambayn doona kelmaddaas yar baan anigu kaga baxayaa haddii alla idmo dadkoo dhan waa u tacsiyeynaa khaasatan ehelka iyo reer Columbusba ilaahay samir iimaan ha naga siiyo marka laba erayo kooban baan ku furahayaa khudbado dheerdheer maahan waxaan u joognaa waa geeri tiiraanyo naxdin leh oo actual geeridu waa xaq waa waajib qof walba uu dhadhaminaya abiil ma lahan waa wax ilaahay qoray waqtiga naftu baxayso iyo qofku markuu dhalanayo iyo meeshuu ku dhimanayo culimadii baa joogta iyo ga damayn doonta hase yeeshee geeriyaha qaarkood waxay kugu noqonahayaan culays ninbaa wuxuu yidhi hadda ka hor wiilal badan lo mid baa ka dhintay ilaan geeri muquuno kuma weydiisuu yidhi ya qofka kaa baxa kuma weydiiso cabdikariin culayska uu nagu leeyahay kulaha magaaladan communityga soomaalida north america iyo guud ahaan soomaalida iyo qofka uu yahay inta yadaan meesha fadhidan waanu garanaynaa intii aan aqoonna miidiyaha aad bay ugala socdaan miidiyaal badan baa looga tacsiyeeyey soomaali iyo dadan soomaali ahayn intaba anigu cabdiqaadir ahaan cabdikariin sida aan uga naxay actually waa si exceptional oo gaar ah dadka ragga meesha fadhiya o dhan way ogyihin saaxiib gaar aanu ahayn walaal gaar aanu ahayn ehel hoosoo dad walaalo ah baanu ahayn geeridiisu waa igu cuslayd caaw waxaanu halkan isugu nimi geeridaas culayskaas nagu leh annagoo saaxiibadiisa waa garan kartaan reerkii iyo qoyskii ehelkii uu ka baxay miisaanka ay ku leedahay marka waxaanu halka isugu nimi caaw inaan isagana u tacsiyeyno una ducayno reerkiina soo aragno oo aan iyagana sidaasoo kale u sheegno inaan la qaybsanayno xanuunka iyo geerida nagu dhacday culayska ay leedahay inaan la qaybsanayno intaa wuxuu ka dambeeya hadalkay qaybta kale gadaal baan u dhiganahayaa waa kusoo gunaanadahayaa insha allahu waxaan rajaynahayaa inaan lana soo koobkooba hadalka waqti yar baan haysanaa waxaan rabnaa inaan maaragtay aanu timeka miisaano intaa kadib waxaan ku xijinahayaa aadan blackburn maya aadan baan ku xijinahayaa aadan inuu waxaynu isku nimi inaanu u tacsiyeyno walaalkeen oo inaga geeriyooday waxaanu leenahay marka horeysa inaa lillahi wa inaa ilaihi raajicuun waa la wada dhimanayaa laakiin geeridu way kana xanuun badan tahay run ahaantii cabdikariin wuxuu ahaa shakhsi nagu weyn haddaanu nahay ummadda reer Columbus iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan wuxuu ahaa ambassadorkii ugu dambeeyey ee dowladdii ugu dambeysay ee Soomaaliya waxaa shakhsi run ahaantii daacad iyo walaaltinimo mar walba bulshada Soomaaliyeed kula dhex jira waxaanu leenahay samir iyo iimaan Allah inaga siiyo isagana qabriga Allah u nuuriyo assalaamu calaykum bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi salaamullahi thumma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaan ambassador cabdikariin cali cumar ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannatu firdawsa geeyo ilaahay inuu qabrigiisa u waasiciyo dadkii uu ka tegayna ilaahay inuu samir wuxuu ahaa wadani buu ahaa wuxuu ahaa nin dadka Soomaaliyeed runtii jecel horumarkooda iyo wanaagooda ay u siman tahay buu ahaa ummadda Soomaaliyeed sadiiq buu ahaa wuxuu ahaa nin asxaanfal u ahaa nin xishooda buu ahaa oo runtii xishood iyo dhogor nin leh buu ahaa ilaahay waxaan uga baryayaa ilaahay waxaan u weydiisanayaa ilaahu cabdikariin cali cumar u naxariiso ilaahu ambassador u naxariiso xaaskiisii deeqa maxamed siyaad caruurtiisii iyo dhammaan reer maxamed siyaad barre iyo reer baroo dhanna
oo marna uu ahaa uu ka qabay gabar xaas ka qabay maxamed siyaad gabadhiisii uu qabay marna uu ahaa haddee maxamed siyaadna abtigiisa uu ahaa oo siyaabo badan ay isugu xirxiraan reerkaasna waxaan leenahay ilaahay samri iyo iimaan ha idinka siiya cabdikariin isagana ilaahay meel khayr qaba ha siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal hadda meeshaan la yidhaahda ma jiro fara badan waan ka ahayn tacsi in aan u dirno ninkaa odaygaa soomaaliyeed siyaasiga ahaa aabbaha ahaa aqoonyahanka ahaa muwaadinka ahaa aniga gaar ahaan wuxuu abtigay waxaa laga yaaba halkan dad badan ka ogaama laga yaaba aad baan isugu dhaweyno nin aad igu qaali ah oo ehel ah oo dad igu xigu ahaa runtii garidiisa aad bay i taabatay ilaa iyo hadda xataa waan rumaysan kari lahay all I can do waxaa waaye inaan ilaahay u baryo subxaanahu watacaala inuu ilaahay qabriga u waasiciyo in ilaahay subxaanahu watacaala su-aalaha u fududeeyo waxaan ilaahay uga rajaynaynaa intaanoo mu'miniina fara badan way ogyihin nin afgaaban oo edab badan oo muslix ah oo mu'min buu ahaa intaasaana ammaan ugu filan in ilaahay uga rajaynaa insha allah dadkii uu ka tegayna ilaahay ha ka siiya samir iimaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون geeridu waa xaq qof walbana wuu dhimanayaa waxaan u ducaynaynaa ilaahay cabdikariin inuu naxariisto janno firdowsana ilaahay inuu geeyo qof fiican buu ahaa raggan meesha fadhiya oo dhan waa asxaabtiisii waa saaxiibadii waxaan filayaa dadka ehliyadii iyo dadka intiisa badan nimayna is arkaynin every other week ma jirin baan u malaynayaa waxaba yaraatee dadka uun aad loo jecel yahay buu ka mid ahaa waxaan rajaynaanaa ilaahay inuu aakhiro dadka la jecel yahay uu ka mid noqdo waxaa kaloon uu tacsi u diraynaa ehliyadii saaxiibadii iyo dadkii waalidka ahaa iyo qaraabadiisii gaar ahaan gabadhii deeqa maxamed siyaad barre iyo reer siyaad barre reer barroo idil waxaan leenahay samir iyo iimaan intuu cabdikariin uu baxayna dabeedii ilaahay inama fidmeeyo waxaan rajaynaynaa in inaguna aan ku wax qaadano in aan meela la jirin waxaan la soconnaa cabdikariin waxaan u malay xafladdii ka horreysay waxaynu ku cilaaminay inuu u carari doono madaxweyne taa marka in qof kasta oo qorsho leh in qorsho kale uu ka sokeeyo inaynu ku xisaabtanno waxaana rajaynaynaa ilaahay inuu u fududeeyo idinkuna aad baad u mahadsantihiin annaguna dee inaguna inaan isaga tacsiyeyno weyna waa wuxuu ahaa nin inaga mid u ahaa bulshada qayb libax ka qaato ahaa intaasaan ku gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد إنا لله وإنا إليه راجعون دمانتين إلهي بأينا له حقي سانا قنينا مناسبتنا نسوق نمد ومناسبة برور دقيقة تعسئة أولا وحن تعسينا أهلكي يقويسكي وعبد الكريم كبحي خاصة حاسكيسة يو ولاشي yaan u sii tacsiyaynaynaa waxaan rabaa intaa inaan raaciyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu nagu yidhi fashhadu lmuxsin yacni waxaa jira xadiis macnihiisu ah qofka wanaagsan wanaagiisa ka markhaati kaca sidaa darteed xadiiskii anas bin malik uu warinayay janaaza markay martay oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu arkay qayb ka mid ah bulshadii markaa madiine joogtay oo wax wanaaga ka sheegaysa janaazadii la waday waa ka rasuulku sala allahu calay wasalam 3 jeer yidhi wajabat 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 way u waajibtay way u waajibtay way u waajibtay wanaag baa u waajibay xadiiska qaybtiisa dambana rasuulku sal slam arrintaas isagoo sii sharaxaya wuxuu yidhi antum shuhadaau llahi fi lardi ilaahay baad subxaana wa tacaala markhaati uga tihiin addoomihiisa oo intaasoo qof oo muslimiina oo janaasadiisa timid intaasoo qof oo muslimiina oo cabdikariin ku taqaanay inuu weligii danjire ahaa mas-uul iyo howlwadeen ummadda soomaaliyeed maalinkii isugu kahay dambaysana meeshan aanu u wada nimid in aan ma aragtay siina codkeenna iyo kalsoonideenna inuu noqon karo mas-uulka ugu sarreeya ummadda soomaaliyeed ama madaxweynaha cabdikariin qofkaasoo aw cali ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu maanta la joogaa waxaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiinaynaa dembi dhaaf waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiinaynaa inuu u aqbalo markhaatiga intaasoo qof oo muslimiina intii janaasada timid intii daafaha caalamka uga tacsiyeynaysay dhammaantood
in sha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in uu ku dhawoobo qowlkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ee ahaa wajabat 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 way u waajibtay hada wallahu aclam wasali allahuma calaa sayidina maxamed asalaamu calaykum garan lahaada laba erey baan ka hormarinaa intaanan xafladda inoo soo xirinin waxaan saa u leeyahay waxaa weeye hadal ka murti badan hadalladii hadda sheekhu yidhi meesha rag oo dhan ka yidhahda oran mayo laakiin markaad waxaa dhacay really emotional noqoto sometimes speechless baa noqonaysa hadalkaa weynaysaa aniga that was the kind of person cabdikariin uga ahaa yaridiis waaxid baan hadda u sheegahayay civil warkii 91kii ninku dhintay aan isla garanayno geeridiisa ilaa maanta waa iloobi waaye baan iri isku beel ma nihin xataa qaraabana ma nihin ninkaas isku da'ana ma nihin nin aniga markaan dugsiyadii hoose ku jiray madax ahaa wey ya cabdikariin saasuu ii taabtay geeridiisa cabdikariin annagu caawa waa dhintay kulligan meeshaasaan u soconnaa sida haddaba sheekhu sheegay laakiin waxaana laga rabaa laba arrimood wax alla wuxuu qiimeyn jiray inaan sii qiimeyno intaana nool oo saaxiibadiisa hadday familigii tahay hadday salaantooda tahay hadday xaq dhowrka tahay wax alla wuxuu asaga xaq dhowri jiray u jeclaa inaan xaq dhowro waa soo jeedinaya waa ka dardaarmayaa anuu shaksiyan dhinacayga waa samaynaya aad baan isaga xisaaray insha allahu arrinta labaad oo aana laga rabaa waxaa weeye qofkii xasuusta salaada tukadaba inuu u duceeyo ya labada arrimood baa wax weyn ah waxaan kusoo koobayaa ina lilahi wa ina ilaahi raajicuun ina lilahi wa ina ilaahi raajicuun ina lilahi wa ina ilaahi raajicuun cabdikariin allaha u naxariisto samri iyo iimaan allaha siiyo dhammaan reer bare gaar ahaan deeqa maxamed siyaad oo walaasheen oo qof nagu dheer ayada lafteedu iyo caruurtiisi iyo maryam oo walaashiisa oo magaalada nala degan sidaasaan kusoo koobayaa iga raalli ahaada haddaan xoogaa emotional noqday waad garanaysiin waxaan rabnaa marka inaynu insha allahu sidaas isku ogaano inaanu mar walbana xasuusano u ducayno qofkii xasuusta allaha u naxariisto ducadu waa wax weyn sidaasaan kusoo koobayaa xafladduna waa inoo xiran tahay insha allah borordiiq bay ahayd borordiiqdeedna intaasay ku eg tahay insha allahu ilaahayna hayd xafida dhammaantiin kasoo qaybgalka kasoo qaybgasheen aad baan idinkugu mahad celinayaa dhammaantiin aad iyo aad